السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي وين السلام يا ملو بعال مكشوكتين waxaan ku horeysiinayaa mahadcelin in boqol iyo todobaatanka kun ee followers aan gaarnay. jazakallahu khayr. internetka wixii business uu bedelo dadkoo dhan ma wada tuso page-ka, laakiin intaa haddana aynu soo tiri follow waa u mahadcelinaynaa. run ahaantii qofkii wax ka garanaya inuu xogaa platformyadan unbaa fahmi karaa muhiimadda ay leedahay inaad meel walba fan base ku yeelato, muxuu ahaa inaad yeelato dad kugu xidhan, dad ku xiriirinaya. xiriirka social mediaguna waad ogtihiin, waa dee like-taa la sameynayo, commentiga aad reebayso iyo sheerka aad qofka u sameynaysid. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, aniga run ahaantii meel muhiimad igaga taalin waa taageerayaashayda waxaan la hadlayo. marka aad baad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol. muuqaalkan waxa kaloo ku xiga waa in yaroo dhiirigelina oo ku saabsan qofka arrimuhu rabo inuu sameeyo, adduunyadan uu ka qabsado, aakhira uu ka qabsado. yacni dhinaca doonaysa waad u leexin kartaa, laakiin waxaa jiro waxyaalo qofka bini-aadanka ka dhex bulbula. marka hadduu jiro wax sidii iftiinka qalbigaaga ku iftiimaya ama qalbigaaga ku dhex bulbulaya, oo wax kasta ood ku mashquusho haddana aad wixii qalbigaaga ku jiray mar walba aad soo xasuusanaysoon ay soo noqnoqonaysoon arrintaasi, magacaasi kugu soo noqnoqonayo, shaqadaasi kugu soo noqnoqonayo, arrintaa aad taargetka saarto kugu soo noqnoqonayo. waxaasi dhowr siyaabood baad horta ka eegi kartaa si aad arrintan ugu dhaqaaqdo, waayo way adkaanaysaa. wax kaa dhex bulbulaya inaad mar walba ku noolaato way adag tahay. nolosha ciriir gelis, maalmaha kugu cuslaanaya, saacadaha kugu cuslaanaya. marka waxaa muhiima qofku inuu isla yar sheekaysto, uu naftiisa u go-aan ay wada gaadhaan. go-aankaasi muddo qofkuu qabsan karaa, bilo, sanado, wiigag, laakiin wixii aad nafta isla ogtihiin ayaa run ahaantii nolosha fudaydiya. wallaahi dharaartu way adkaanaysaa haddii maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo jirhkaaga ina wada socon. aad bay dharaartu u adkaanaysaa. markaa saddexdaa sidee aliniya looga dhigi karaa, sidee bay isku line u noqon karaan, sidee bay u wada xiriirmi karaan, taasi kolley insha allah waynu casharo aynu wada qaadan doono ayuu noqon doonaa. imika ahaan waxaan rabay inaad insha allah aad ka fikirto waxaan kaa bulbulaya khayr muu kugu jiraa mise kuguma jiro. waxani ma yahay wuxuu shaydaanku kugu afuufayo, mise waxa weeyaan waxyaalo rabbaaniya oo adduunyadan uu ilaahay rabo inaad kaalin aad ka buuxiso, uu ilaahay kugu inspire garaynayo. sidee baa lagu ogaan karaa? mid weeyaano maanta hadduuna jirin inanka ama gabadha pilotka ah miyaan dhoofi kari lahayn? maanu dhoofi karnayn. way adkaan lahayd inaynu hawada qaadano oo dhowr saacadood meel ku tagno. dariiqaa la qaadan lahayo ilaa bilowbay dadka ku qaadan jirtay inuu qaarad kale ku gaadho ama inuu waddan kale ku gaadho. in pilotku hadduu pilot noqday uu hamigaasi galay, dee wax bilaashunsaa uu yimid maaha. waa kaalinuu ilaahay u dooro inuu qofkaasi adduunyadan uu kaga dhex buuxiyo. kaalintaasoo bannaanayd ayuu qofkaasi buuxiyey. gabadha umulisadu haddayna umulisa jirin oy gabadhi jirin, dee maamadaa umulaysa may sahlanaan lahayd ilmahaasi inuu ka soo baxo oo si sayfa iyo hooyadii ilmihii loo kala badbaadiyo ka soo baxo? may fududaateen. arrimaha qaar waa wax rabbaaniya weyaan, waa wax rabbaaniya. markaa sidee baan u ogaan karnaa waxaan kaa dhex bulbulaya inay tahay wax lagugu talagalay amba wax macquul noqon kara? doorta marka u horeysa alxamdulilah rabbilcaalamiin, dad muslimiin aynu nahay. ilaahay samicnaa waatacnaa baynu ku garanaynaa inaynu aamino inuu allah jiro, nabi maxamed calaih salatu wasalaam. markaa dee waxa qalbigaa ka dhex bulbulaya horta marka u horeysa waa inaad dhinaca diinta ka eegto. waxani ma yahay ma wax diinta ka hor imanayaa, ma wax ilaahay kaa fogeynayaa? wixii ilaahay kaa fogeynayana dee naftaada waad ka fogaatay. marka waxweeyaan halkaasaad horta ka eegaysaa. waxani ma yahay waxaad adduuniya aakhiro ku waayi kartid, waxaad xiriirka ilaahay ku waayi kartid muu yahay? hadduuna ahayn dee horta waxa weeyaan xaggaa dhibic baad ka heshay. waxaan kaa dhex bulbulayaa marka waa wax positive ah, waa wax fiican. marka taasi waxaad is leedahay bacdamaa arrintan uuna ka hor imanin diinteeda, oon ilaahay xiriirkiisa aan ku waayeynin, oo wax dembiya uuna ku jirin,
yes waxan waa waxaan samayn karayo. taas waa dhibicdii ugu horeysa. halka labaad aad ka qiyaasi kartaana waxa weeyaan imisa arrintan biyada aad ku nooshahay looga baahan yahay. ma yahay wax loo baahan yahay yaa magaalada aad ku nooshahay. magaalada haddaan looga baahnayn gobol kale amba tuulo ma looga baahan yahay. intee in leeg ayaa arrintan aad doonaysa inaad samayso wadankaaga looga dhex baahan yahay. taasina waa wax aad ku cabiri karto ama arrintan kaa dhex bulbulaya kugu riixi kara inaad ku dhaqaaqdid. arrinta saddexaad ee kuu fududaynaya arrintan aad ku dhex dhaqaaqdo waxa weeyaan maxaa faa'iido kugu jira. waxba inaan been la isku sheegin. waxaad ka eegaysaa dee naftaadaad eegaysaa yaa dadka af ingiriiska ku hadlaa waxay dhahdaan time is money. waxa weeyaan waxaan haddaanad faa'iido fiican ka helayn oo noloshaadii uu halka aad taagneeduna kor uga qaadaynin dee wallaahi si aad niyad ugu shaqayso way adkaanaysaa. marka intee in leeg ayaad isleedahay meeshan waxbaad ka soo saari kartaa. waxaad ku noolaato waxaanaad soo saaraysana waa guulaad gaadhay. naftaadii bedelaya dadka kugu hareeraysan family qaraabo ehel deris intuba waxbay kaa faa'iidayaan. marka arrinta saddexaad ee kugu riixi karta waxaan kaa dhex bulbulayaan waxa weeyaan intee in leeg ayaad ka samayn kartaa shilimaad. maxaad ka heli kartaa. waxaad heshay oo waxdee adduunyada adigiina ku baahi tiraya eheladaadiina wax ugu qaban kartid masaakiintiina waxaad ugu qabanaysid waayo fuqaradana hal eego ka ilaahayna faray. marka fuqaradii waxay ugu qabanaysaa dadka baahanna waad kor baad ugu soo qaadaysaa. markaa saddexdaa step baad maraysaa si waxaan kaaga dhex bulbulaya aad u go-aamiso inuu yahay wax aad qaban karto wax lagugu talagalay. su-aal baa meeshay taala. waxani haddii aad su-aalihii oo dhan aad wadaa okay ay ku wada noqdeen wuu yahay arrintan kaa dhex bulbulaya waxaad u samaysan tahay oo uu yahay inaad arrintan qabsato. taasna jawaabteeda u horeeya waxa weeyaan ilaahay hadduu kugu inspire gareeyeyba kulley meeshani amba waa wax lagugu talagalay oo rabbi doonaya adduunkan kaalin madhan amba baahideedu ay taalo inaad buuxiso yaa dakhtar waa loo baahan yahay oo intaasoo qof maqalin u baahan kara. umulisadii baa loo baahan yahay. inaad macallin noqoto waa loo baahan yahay. dad badan baa maanta sida iyada hadlaya qoraya ay u baahneen wax lasoo baro. marka waa inaad kaalintaa buuxiso. malyuuno arday oo maanta adduunyada caalamka wax ka ah ayaad soo saaraysaa. kaalin baad buuxisay. marka waxa weeyaan arrintan qalbigay ka dhex bulbulaya ma yahay wax laygu talagalay. horta jawaabta u horeysa waxaad ka helaysaa ilaahay baaba kugu inspire gareeyay waxan. marka taasi waa jawaabtii ugu horeysa. mid kalena way soo galaysaa meesho haddii xataa aan lagugu talagelin arrintani hamigan aad lagugu beeray haddaad ku dhaqaaqdo laakiinse aad ku fashilmato ay kuu noqon weydo halkan cashar baa lagaa barayay. laga yaabaa in lagu barayay samirku wuxuu yahay waxay ka dhigan tahay. laga yaabaa in lagu barayo lacagaha sida loo maareeyo haddii wax ku soo galaan ay kaa khasaaraan dee haddeed waad ku dadaali waxyaalihii kaaga khasaaray inaad iskaga ilaaliso. laga yaaba kulli casharunbaa lagu barayay xataa ilaahay hadduu kugu inspire gareey laakiin aanad businesskan amba arrintan amba shaqadan aanad ku dambeynin waxaad u soo martay waxbaa lagugu barayay. marka wax kale ma ku dhaqaaqi kartaa shaqo kale ma qaban kartaa oon ahayn tii qalbigaaga ka bulbulaysay haa waad ku dambeyn kartaa mid kale oona qalbigaaga markii hore ku jirin. laakiin waxaa muhiim ahayd arrintan kaa dhex bulbulaya inaad soo marto waayo waxbaa lagugu barayay. waxaa lagugu barayay wuxuu u yahay saas amba asaas businesskan kale amba shaqadan kale ee sida rasmiga lagugu talagalay. taasina waa just in case waxaan kaa dhex bulbulaya haddaad ku dambeyn weydo oo wax kale aad ku dambaysid. marka run ahaantii dadka bini-aadanku way kala duwan yihiin. dadba hal arrinoo keliya un ku eg oo waxaa un haysta from maalintay bilaabeen ilaa ay ka gaarayaan 60 jir 80 jir isla shaqadii unbay ka shaqeeyaan. wax kale inay ku weecweecdaan ma jecla. dadna waxay u samaysan yihiin 10kii sanaba inay shaqooyinka kala bedelaan. maanta waxaanu qabtay wax kaloo baranaya maanta shaqo kaloo gudbayaa wax kaloo baranaya shaqo kaloo gudbayaa. dadkaa kala duwan. marka inaad kaalin kaliya buuxiso iyo inaad kaalino badan aad buuxiso ilaahay ummadda qofba sibuu abuuray yaa. marka adigu waxaad focus ka saartaa maanta ood ka fikirtaa
waxaan kaa dhex bulbulaya ma yahay wax khayr ku jiro? hadduu yahay wax khayr ku jiro ma yahay wax inanfacaya? hadduu yahay wax inanfacaya goormaan ku dhaqaaqi karaa? haddii aan ku dhaqaaqo ilaa halkee baan la gaari karaa? muuqaalka inaanan ku dheeraan ma jeclin 10 mir iyo waxaa isla dhaafan. hadduu ila dhaafo wadan 10 dheer oo qayb aan u micneynayo yahay. marka halkan baan ku joojinayaa. waxa kaa dhex bulbulaya siyaabahaad u ogaanaysid inuu waxani lagugu talagalay waa sida aan kuu soo micneeyey. cajalada dib ugu cesho, muuqaalka dib ugu cesho, buugana ku qoro insha allah si aad u xasuusato steebyada loo marayo. intaasaan muuqaalka ku joojinayaa. mahadcelin buuxda run ahaantii bahda see jibriil ha liicin ha jabin baa la yidhahdaa. horaan u soconaynaa. aad baan idiin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.